السلام عليكم صاحبيال ميل بأجوكتان waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan saaxibada meesha aan naga daawaneysaan waa Tawfiiq Films magaciiguna Yuusuf Xasan Khaliif barnaamijka tartanka cuntada oo inta badan aad ka daawataan channelka Tawfiiq Films ayaa maanta waxa miiska noo saaran laba gabdho oo walaalaheen ah oo nugu qaali ah tartanka cunto cunista ayaa waxa ka soo qayb galaan rag iyo dumar noocyadooda kala duwan sidaa daraadeed maanta waxa tartamaya laba gabdho magacyadooda ayaga ayaan iska bari doonaan iyo sidii ugu diyaarsan yihiin tartanka bal hadda waxa wacaya tartamaha koowaad ugu horeen hadda tartamihii koowaad ayaa na soo gaaray ugu horeen adiga magaca dadka isbar magacayga waa Faadumo Cabdullaahi Maxamuud oo ku magac dheer Faybarejo Faadumo Cabdullaahi Maxamuud Faybarejo maanta gameka adag waxay wajahaysaa gabar kale Faadumo degmada ka socotaa degmada Boondheer aan ka socdaa reer Boondheer su'aal ayaa idin hortaalo qofta aad soo dirsateen maanta meesha ma kala tagi doontaa guul waa su'aal isweydiin mudan waxaan ka sugaynaa ayada Faadumo Barejo ugu horeen maanta tartanka waxa wajahaysaa saaxiibadaada Caasha miskaaga filantahay ugu horeen ma sha Allah warjeena inaan qof fiican iskaga filanahay oo i reebi karin ma sha Allah baan ku soo dhaweynayaa aniga iyo qofka tartamaha ah inay guuleysata in badan ma jecli okay meesha 10 daqiiqo gudaheeda inta aan la gaarin ma ugu dhaxbixi kartaa raashinkaas bisil ee meeshiya ma sha Allah ku rajaweynaa intaasba Faadumo ugu horeen adiga shaqadaada maxay tahay shaqadeeda wax shaqo ma qabto hooyaday aabaha iskala jooga si fiican ma sha Allah waalidiintaada la nooshahay waalidiinteeda ayaa la noolahay okay su'aasha aku weydiinaa waxay tahay tartankan inaad ka qayb gashay sidee kugu suurta gashay waxa igu suurta gashay maanta ayaan maqlay qadka ayaan ka daawaday waxaan dhahay qof hooyada la nool wax shaqaan kama raadiyo wax macaasha kama raadiyo waxaan iska galay qaraaxo iyo baashaal iyo waxyaabahaas wax oo dhibaatana kama qabo ma sha Allah idinku soo dhaweynaa waa maasan tahay sida hore in kugu sheegay challenge-gan quruxda badan ama tartankan dadkan galayaan waxay u galaan qaraaxo marka adiga waxa leedahay qaraaxo aan galaha waa maasan tahay hadda waxa soo istaaji doonaa tartamihii labaad hadii magacaaga dadka bar magacaygu Cuuday Maxamed Xasan Allah okay Cuud ayaana soo gaartay Cuud Maxamed Xasan Cuud naanes ma leedahay magacaygu runta Caasha waa Cuudka naanes waaye anigu yaqaan waaye si fiican barnaamijka maanta Faadumo oo ka imaaday degmada Boondheer ayaa la tartamaysaa ugu horeen adiga degmadee ka imaaday Wardhiigley reer Wardhiigley su'aal ayaa hortaal ma iskaaga filan tahay Faadumo oo Boondheer ka imaaday iskaaga filana 10 daqiiqo alaabtaas meesha ku camiran ma ku dhaxbixi kartaa barafiyo waa iskaaga filan tahay okay waxaan ku weydiinayaa sidee kugu suurta gashay barnaamijkan raashin cunista inaad ka qayb gashid YouTube-ka ka arkay barnaamijkiisa fiiriyay taleefanka meesha ku qornaa soo wacay marka soo wax ma soo qayb gali karaan dhahay soo qayb galaa la sidii maanta u imaaday okay barnaamijka ugu horeen adiga maxaa ka aaminsan tahay ina wax ka faa'iido rabaani oo ina qaraaxada iyo waxa saa ka rabaa okay adiga shaqada qabatid noloshaada sidee waay shaqo ma qabto waalidkayga la joogaa waalidiintaada la joogtaa meeshan waxa imaada qaraaxo okay fariinta aabada u marinaysid saaxiibadaada Faadumo Boondheer ama Faadumo Barejo haye fariinta aabada u marinaysid oo ah haye waxaan u marnaa in iyada igraasirtaa maho si fiican anina iyada karaayaan tusiraba way ku hanjabto qoftaas ina iyada igraasirtaan ina iyada karaayaan raba oo 10 daqiiqo qabto ka hor inaan ku bogo ina ku bogtid okay waa maasan tahay qoftaasna waxay ahayd reer Wardhiigley ayay ahayd daawade barnaamijka maanta lagu tartamayo waa Baji iyo Lefo laba gabdhood oo aan kala leedin miiska iyo xaadir ku yihiin labadaas gabdhood oo ka kala socdaan degmada Wardhiigley iyo degmada magaceedu yahay Boondheer barnaamijka maanta waxa taa lacag gaarayso $10 sida awar agtaan $10 ayaa miiska saaran Caasha oo ka socota degmada Wardhiigley iyo gabadha kale ee ka socoto Faadumo oo ka socota degmada Boondheer hadii ay labadood 10 daqiiqo inta aan la gaarin naagtii cuntaane waxay qaadan doontaa lacagtaas $10 barnaamijka waxa naga saaciiday oo naga caabiyay walaalkeena aadka u jecelnahay ee aadan Maxamed Axmed oo barnaamijka maanta noo qabtay asi ayaan ku mahadsan agaasimaha barnaamijka tartanka cuntadana ama fikirka ninka iskalena waa Bila Xasan Cabdi Macow وأصينا برامج كان قريب كه
ciyaartii ayaa goordhow bilaaban doonta haddii allah wadaraali ka ahaado labada qof bootadooda waa dhegaysanay saaxiib janalka aa naga daawanayso waa Tawfiiq Films.
maasha allah waan rajeynaa inaan qof fiican iskaga filanahay oo i reebi karin maasha allah baan kusoo dhaweynayaa aniga iyo qofka tartamaha ah inay guuleysata in badan ma jecli waxaan u marnaa inay iyada igraasirtaa maho si fiican anina iyada karaayaan tusirada way ku hanjabto qoftaas ina iyada igraasirtaan ina iyada karaayaan raba oo 10 daqiiqo qabto ka hor inaan ku bogo inaa ku bogtid daawaday ciyaartii adkeyd ayaa intaas ku soo dhamaatay ciyaartii u dhaxaysay gabadha walaasheena ah Aasho iyo Faaduma ciyaartooda way soo ilaatay sida aad wada ogtihiin boo ciyaartii quruxda badneed maanta tartanka waxaa taabagelinayay walaalkeena lagu magacaabo Aadan Maxamed Axmed aad u mahadsantahay brother ciyaartii waa soo ilaatay gabdhihii tartamayeen maanta raashinkii waqtigii oo ku dhacay 10 daqiiqana way ku dhamay waayeen laakiin xaqiiqada marka laga hadlo labadii gabdhood way dadaaleen oo aad u soo dhaweeyeen haddii aad idin tusiyo saxmadooda raashinka ku jira Faaduma oo ka socota degmada Boondheere raashinkeeda waa kaasa sida aad aragtaan iyo saxankii oo camiran sidaas ay taana waqtiga ayaa ku dhacay arinta kale jirto waxay ahayd Aisha raashinkeedana intaas ayaa uga hartay oo sambuuska iyo bijiyaha haddii aan u wacno dhanka iyo saxankii wax lagu cunayay waa kaasa oo weli wax baa ku jira walo qoftan wax yar ay soo dhabeysay daawade ciyaartii intaas ayaa noogu ilaato labadooda raashin ay leeyihiin saasay taane abaalmarintii ee loogu talagalay
kulley waxaa waa qof lehna ma jiraan way dadaaleen labadii gabdho isku soo noqo dambe oo xiiso leh abaalmarintiina kulley saacado in kuu sheegay qof leh malaha oo 10 daqiiqo inta aan la gaarin haddii lagu hor cuno ayaa la dhamee lahaa ayaga marka waxaa cabiri doonaa dareenkooda iyo su'aalo qofba su'aalo hor dhigi doona ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Faaduma see maxaa qaldanaa maanta waa raashinkii wuu yaalaa wax waa cuntay intaan kale maxaa u dhamay weyse intaan kale gurigaan ka soo qadeeyay maanta waa dhirginaay maanta dambe aan u baahan ayaan imaan doonaa kabacdi aan qaban doonaa tartanka si fiican inaad qada soo cuntay ee tartanka qadan soo cunay marka taasaa u sababay inaad dhamay weyso oo kale kulamadu soo socdo sidee ugu soo diyaar garoobi doontaa insha Allah markaas soo isku tijaabinaa waan ku soo tashanaa markaas ma hadda laakiin maanta ka hor imaada iga ahayd okay waa soo aalmitay doontaa kulamada soo socda insha Allah tababar gali doontaa insha Allah warjeena bala aragno sida isku soo diyaari doonto qofta Faaduma oo ku socotay degmada Boondheere raashinkii maadaama ay dhameeyay bal su'aashaas mid lamida hor dhigi doona ayadana gabadhan kale aan ka leedinin Aisha sidee kugu suurtageli weysa maanta inaad raashinkii dhamay weyso maxaa qaldan 6 saac badar soo cuno dadka adoo kor u qaadaya maxaa dhahay 6 saac badar soo cuno guriga ka soo qadeeyay 6 saac raashin soo cuntay intaas soo okay maanta waa dhamay weysay sidee isku soo diyaari doontaa kulamada soo socda waa soo tashanaa markaas ma haye tan waa soo qadeeyno okay tan wuxuu ku taa 10 aka baratay maanta guulo oo keenay degmada Meteleys kulamada soo socda maxaa rajinaysaa inaa guuleysatid okay daawade labadii gabdho raashin ayaa soo qaadeen oo qof walba wuxuu sheegtay arrin oo isku difaaco meesha aan naga daawanayso Tawfiiq Films saaxib channel hadii aad ku cusubtaa subscribe like share ka dhankaaga barnaamijka maanta waxaan u taabageliyay walaalkeena aadan maxamed axmed ayaa maanta aad nooga caawiyay inaan qabano barnaamijkan ase ayaan waxaan quruxda badan ee arkaysaan ase ayaa naga saaciday maanta ciyaaro kalena way soo socdaan oo wadada ay ku soo jiraan ciyaarahaas oo aan qaban doono isbuucan gudihiisa kulamo adag ayaa lagu soo wajahan kulanka ugu adag ee labada sugayo waa Jose iyo Gongon oo ciyaar waali ah iyo ciyaaro kale oo xusan daawadayaasheena qurbo joogtana aad iyo aad u mahadsan yihiin sida barnaamijka ugu xiran yihiin oo mahad celinaya barnaamijkan maskaxda barnaamijkan lahayd ama agaasimaha barnaamijkan ee hindisay ama soo diyaariyay waa Bile Xasan Cabdimacu oo ku nool mid kamid ah wadamada reer Yurub galab wanaagsan isku soo noqon dambe xiiso leh